bismillaahi raxmaani raxiim halkan waa janalka Tosno Media duhur wanaagsan qodobada wararka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ICJ oo soo saartay jadwalka dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya dowladda federaalka oo shaacisay qorshe laga lahaa weerarkii shalay lagu qaaday xerada Xalane maxay tahay sababta dani uu shaqada uga joojiyay gudoomiyaha Boosaaso qodobada ay qodobada ayaad ku dhageysan doontaan warkeena duhurnimo ku soo dhawaada faafahinta warka wararka ugu dambeeyay ayaa hadda waxa ay naga soo gaarayaan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qarax barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo ahaa nooca miinada ayaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah uga dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ka oo geystay waxyeelo kala duwan wararka ayaa sheegaya in qaraxan lala egtay gaari nooca raaxada oo ay ku xirnaayeen mikrofoono loogu talagalay in dadka looga wacyigeliyo COVID-19 ilo deegaanka ah ayaa inoo sheegay in qaraxan uu ku dhintay wadihii gaariga sidoo kalena ay dhaawacyo soo gaareen askar iyo dad kale oo la socday baabuurkaasi goobta uu qaraxu ka dhacay oo ku dhow garoonka kubadda cagta ee Qoob Dooro ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya si kastaba qaraxa miina ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan dari oo maalmihii la soo dhaafay sabab kala duwan uga dhacay gudaha magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay uga hadashay ujeedka laga lahaa weerarkii hoobiyaasha ee ay shalay al-shabaab ay ku qaadeen xerada Xalane ee ay degan yihiin hay'adaha caalamiga iyo safaaradaha weerarkan fulinimada ah waa isku day lagu doonayay in lagu weeqo taageerida muuqata ee bulshada caalamka iyo dadaalkooda ku aadan dhismaha nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda qoraalka ayaa intaa ku daray weerarkan hoobiyaasha ah ayaa cadeynaya isku dayda taagta daran ee argagixisada oo maciin biday in ay beegsadaan samafalayaal u yimid dalka si ay u caawiyaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada gargaarka bini'aadanimada kadib markii ay u midoobeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sidii ay dalka uga sifayn lahaayeen argagixisada dowladda ayaa sheegtay in weerarkaasi aanu ka wici doonin qorshayaasha midaysan ee lagu wajahayo argagixisada si lagu yiri qoraalka dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay sare u qaaday feejignaanta amni isla markaana ay baaritaan dhameystiran ku sameyn doonto weerarkan hoobiyaasha ah weerarka ayaa yimid iyadoo la filayo in dhawaan xerada Xalana ay martigeliso kulan ay goobjoog ka tahay beesha caalamka oo dhex mari doona madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kulanka oo looga hadlayo muran ka taagan doorashooyinka Soomaaliya waxaa shalay magaalada Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ka mid ah madaxda kulankaasi ka qayb galaysa madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boosaaso kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa shaqo ka joojinta gudoomiyaha ayaa ku timid eedeymo la xiriira ku dhaqan la'aanta nidaamka maamulka dhaqaalaha ee magaalada Boosaaso waxaana wareegtada lagu xusay in madaxweyne Dani uu talaabadan u cuskaday qodobka 8aad ee dastuurka Puntland wareegtadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa lagu yiri madaxweynuhu markuu arkay talo soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dowladda Puntland iyo cabashooyinka ka imaanaya shacabka degmada Boosaaso waxaa shaqada laga joojiyay gudoomiyaha degmada Boosaaso Mudane Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan waxaa shaqada sii wadaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada Boosaaso waxaa la faray hanti dhowrka guud in ay baaris dhameystiran ku sameeyaan maamulka iyo maareynta maxkamadda cadaaladda adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ICJ ayaa shaacisay jadwal ku aadan dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxeysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in dhageysiga dacwadda uu si toos ah u bilaaban doono 15 bishan March waxaana dooda ku horeyn doonta Soomaaliya sidoo kale ICJ ayaa shaaca ka qaaday in wareegga koowaad ee dhageysiga dacwadda uu socon doono 15 ilaa 19 bishan March ee sanadkan 2021 jadwalka ayaa sidoo kale lagu muujiyay in wareegga labaad ee dacwadda dib la isugu soo noqon doono 22 isla markaana ay doodu socon doonto ilaa 24 bishan March wareegga koowaad ee dacwadda waxa ay ku bilaabanaysaa Isniin 15 March 2021 3 PM ilaa iyo 6 PM waxaa iska leh Soomaaliya maalinta Talaadada 16 March ay ku beegan tahay
saddexda PM ilaa iyo 4:15 PM waxaa iska leh Soomaaliya mar kale. maalinta Khamiista ay ku beegantahay taariikhda 18 Maaj waxaa iska leh Kenya. maalinta Jimcaha ay ku beegantahay 19 Maajna waxaa iska leh Kenya. wareegga labaad Monday 22 Maaj waxaa iska leh Soomaaliya. Arbacada 24 Maaj waxaa iska leh Kenya. si kastaba Soomaaliya ayaa dirsatay guddi gaar ah oo u qaabilsan dhageysiga dacwadda, kuwa oo haatan ku sugan magaalada Hague, waxaana hogaaminaya Sihayaha Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa warkeena duhurnimo. Wassalaamu calaykum.